من البركات واخشع في كل صلاة. الله جل علاه من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علاه من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الوقت إن يحضر بوضوئنا نطهر، بركوعنا نشكر، بسجودنا نذكر. الوقت إن يحضر بوضوئنا نطهر، بركوعنا نشكر، بسجودنا نذكر. في خشية لله الله جل علاه من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. الله جل علاه من لا إله سواه، يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. فضل من المولى وعليه لا يعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. waa mar kale iyo muxaadarooyinkii maanta oo ah maalintii koowaad ee shirweynaha shanaad ururada muslimiinta ah ee Scandinavian-ka. marka intaynaan muxaadaradeenna u gelin wax yar ogeysiisa qofkii qaba su'aalo fiqi ah, muxaadarada ku xigta ayaa fiqi ka hadlaysa, horaha u sii diyaarsado su'aalihiisa. qofkii qaba su'aalo fiqi ah horeha u sii diyaarsado, waayo muxaadarada ka dambaysa ayaa waxay noqon doontaa mid fiqi ah. intaas kadib waxaynu u gudbaynaa muxaadarada saddexaad ee maanta oo inoo soo jeedin doono sheekh maxamed cusmaan. muxaadarada magaceedana waxaa la yidhaahdaa ama ciwaankeeda xuquuqda qoyska. falyatafadal sheekh maxamed. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا ليال أولا waxaan idinku salaamahayaa salaamta islaamka oo ah tan mashruuca ah. dhammaantiin waxaan idin leeyahay salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. salaantaa ka bacdi waxaan jeclahay inaan ka hadlo maanta mowduuc in badan la tarqiyey ama in badan laga hadlay oo ah mowduuca sida lagu dhisi karo guri wanaagsan oo ka qayb qaadanaya mowduucan shirku uu ku saabsan yahay oo ah mowduuca badbaadada ummadda. waxaan shaki ku jirinin haddii qoys kasta oo muslimuhu uu qoys wanaagsan noqdo, aabbo wanaagsan, hooyo wanaagsan, ilmihii ka soo baxay oo ilmo wanaagsan, in mujtamacaasu
qoysas noocaasoo la isu geeyey hadduu noqdo inuu mujtamac wanaagsan noqonahayo wabitaali uu noqonahayo mujtamac badbaada mutaystay ama wax badbaadiyo uu noqonahayo mowduucan marka waxaad og tihiin mujtamacu wuxuu ka kooban yahay guryo wey gurigiina waxaa jooga dadkii ama canaasirtii mujtamacu ama uu ku wanaagsanaan lahaa ama uu ku xumaan lahaa waxaa ka soo baxaya mustaqbalkii oo ah carruurtii mowduuca marka dhinacaas ayuu kala xiriirayaa mowduuca badbaadada waxaan jeclahay inaan ka hadlo sida qoys wanaagsan lagu heli karo waana mowduuca ugu muhiimsan oo mowduuca xuquuqda ah maxaa yeelay marka aabbuhu uu meel wanaagsan ka soo kaco guri wanaagsan uu ka soo kaco daacadii ilaahay loogu kaalmeeyo ra'yi wanaagsan uu ka helo waxaa laga yaabaa mujtamacii inuu ku noqdo cunsur facaala talakeen ah ma arkaysaa yacni maanta haddaad u fiirsatid caalamka islaamka dhibaatooyinka ugu waaweyn oo haysata waxaa weeye infisaamka ku dhacay daatada shakhsiga qofka muslimka ah haddii gabadha guriga joogtaa ay sidoo kale tahay gabar wanaagsan oo wixii xuquuq ay lahayd helaysa iyaduna waa madraso wax tarbiyaynaysa oo badbaadinaysa ajyaasha soo socota carruurta ka soo baxaysaana carruur toosan oo insha allahu tacaala qaadi doona raayada islaamka haddii aan ka tagno dunidan maanta aan joogno ilaa waxa weeye islaamku waa raayadaas qofba qof u dhiibahayo oo ilaa nebi moxamed calayhi afdalu salaatu watasliim mowduuca marka xuquuqda intaana ka hadlin waxaan ku noqonayaa muqadimaad yar yar ah in guri islaama la dhiso oo waddo xalaala lagu dhiso waa sunno ilaahiya weey waana sunnadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jideeyey ambiyada oo u jideeyey dadkii wanaagsanaa oo mu'miniinta ahaa walaqad arsalnaa min qablika rusula wajacalnaa lahum aswaajan buu ilaahay leeyahay nebi moxamedow hortaa waxaanu dirnay buu yidhi rusul xaasas baana u yeellay buu yidhi waddadii macnaha xalaasha ahayd ee tanaasulka iyo takaahurka oo lagu gudanayey yacni caatifada iyo ma arkaysaa iyo wixii la mida inay waddadaa noqoto wallaahu jacala lakum min anfusikum aswaaja wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafadatan buu ilaahay leeyahay naftiinnu wuxuu ilaahay idinka sameeyey aswaaj wuxuuna idinka yeelay kuwaas xaggooda carruur aad dhashaan kuwa aad awow u noqotaan warasaqakum min alطayibaati buu ilahay yidhi caza wajal aayad kaluu ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma calaamadaha waaweyn bay ka mid tahay buu ilaahay yidhi inuu idiin sameeyey naftiinna xaggeeda aswaaj aad ku xasishaan gabadhu way ku xasilaysaa zawjkuna gabadha wuu ku xasilayaa carruurtuna way ku xasilayaan labadaa wada joogooda wuxuuna dhexdiinna dhigay kalgacayl haddaad israbtaan oo aad isjeceshihiin oo weliba dhexdiinna ay taallo wixii aad isugu timaadeen haddii dhexdiinna jacaylkii ka dhammaaday waxaa dhexdiinna yaalla carruur waxaa dhexdiinna yaalla islaamnimo taasaa ilaahay wuxuu leeyahay waraxmatan naxariista marka loo baahanayaana waa markaas wey saas awigeed baa nebigu calayhi afdalu salaatu watasliim wuxuu leeyahay asaga oo sunnadaas fidinahaya yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj waman laa xadiidku wuxuu ahaa ninkii awooda guurow guurso ninkaan awoodinna nebigu wuxuu yidhi falyasum fa innahu lahu wijaa ha sooma buu yidhi maxaa yeelay soonka ayaa goynahaya shahwada iyo qofku inuu ku dhaco waxyaalaha ilaahay reebay oo muxaramaadka marka qofku uu rabo inuu guursado oo guri islaama uu dhiso intaan xuquuqda la gaarin waxaa daruuri ah oo muhiim ah gurigaa in lagu dhiso islaamnimo dadku hadda maxay ku dhisaan waxay ku dhisaan qabiil wuxuu ku leeyahay gabar reerkayga ay raadi hadda hadhow qabiil guursan maysid wuxuu ku leeyahay mid baa beri wuxuu igu yidhi waxaan rabaa gabar laba midab leh maalintii midab leh habeenkii midab leh markay taagan tahay la moodo inay fadhido markay fadhido la moodo inay taagan tahay waxaasuu akhrinaya waxaan ku yidhi taa jannay jirta mid baa waxaad isleedahay waxa uu rabo inuu asagu qorto baa ficlaan lahayd inta loox loo dhiiba layaa soo qoro adigu shuruudda shaytaanka uu degsanayo
لكن إلهي سبحانه وتعالى مركو كهلا هي مسائش النوعان وكلا مقوم ككوبات وحو إلهي كدقي الدين حيل الدين هو الليبان توي قرقوا الدين بو باهنية قرقوا الدين بو باهنية عرورتو الدين بو باهنيسا درسكو الدين بو باهنية dadka iimaanaya diin bay u baahanayaan markaasuu ilaahay wuxuu yidhi wala amatun mu'minatun khayru min mushrikatin walow acjabatkum bu ilaahay addoon haweenay addoon ah oo mu'minad ah ayaa waxay ka wanaagsan tahay mid mushrikad ah walow mushrikadaasu idin cajab geliso oo aad la yaabtaan quruxdeeda waxaa ka fiican buu yidhi addoon mu'minad ah muqawimka koobaad marka waxaa weeye diinta wey qofku inuu yacni u raadiyo gurigaas inuu diin u raadiyo waana midda ilaahay quraanka uu ku ammaanay gabadhiina sidoo kale weeye ilaahay wuxuu leeyahay wala cabdun mu'minun khayru min mushrikatin walow acjabatkum addoon mu'min ah ayaa uga khayr badan gabadha mushrik qurux badan faasiq qurux badan mid ma arkaysaa yacni kuwan lagu doorto ama qabiil dheh ama qurux dheh kaasaa uga khayr badan buu yidhi nebiguna calayhi afdal asalaatu watasliim isagoo noo soo naqlinaya waddadii lagu guursan jiray buu wuxuu yidhi tunkaxu almar'atu liarbacin limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha buu yidhi haweenta dad baa waxay u guursadaan qurux keliya qurux baan ka rabaa buu leeyahy nin baa wuxuu leeyahy anigu waxaan ka rabaa xasab iyo nasab qabiil inay leedahay nin baa wuxuu leeyahay waxaan ka rabaa inay xoolo leedahay nin baa wuxuu leeyahy waxaan ka rabaa inay diin leedahay nebigu calayhi afdal asalaatu watasliim saddexdaa kale inta ka soo gudbay ayuu wuxuu yidhi fadfar bidaati ddiini war midda diinta doora buu yidhi midda diinta maxaa yeelay saan idiin sheegay diintu waa muqawim asaasiya wey oo gurigii uu u baahan doono berrito maxaa yeelay qabiil haddaad ku guursatid qabiilkii guriga kula joogi mayo qurux haddaad ku guursatid ayadoon qurux diintu diidaynin waa wax laga yaabo dhammaado haddii diin la waayo ama quruxda keligeeda quruxda xaqiiqada waaba diintaba sida aayadda laga fahmayo xoolaha weyn leedahay in haddaa u guursatid hadda inay ku masruuftaba waxaa weeye xaqba umalid waxay ku leedahay lacagteed anaa leh lacag keenso intaasaaba kugu filan nebigu xadiid kale oo xasana wuxuu ku leeyahay takhayaruu linidfikum candhuuftiinna yacni u doorta gabar wanaagsan ilmaha aad dali doontaan gabar wanaagsan u doorta doorashadaasuna waa diinta weeye waxaa ka mid a muqadimaadka in la eego gabadhuna ay wiilka iska eegto yacni tii diinta eegiddii yacni hadday jiraan maalan waxyaalo ama xanuun ah ama ay jiraan maalan waxyaalo qofku uusan ku qanacsanayn eegitaanku faa'iido badan buu leeyahay nusuustuna waa sheegtay oo saxaabadu xadiidkii jaabir baad aragteenoo saxaabadu way dee gabdhaha berigii yaryaraa looma xijaabi jirin hadda gabar waxaad arkaysaa 2 sano jirto jilbaab weyn loo geliy gabdhaha marka waxaa weye ilaahay intay yaryaryihiin looma xijaabi jirin inkastoo in la bara loo baahan yahay haddana mid biyo waddo oo qoorteeda la arkay iyo mid lugteeda la arkay iyo jaabir xadiidkiisu saasuu leeyahay waxa weeye wax dhibaataana male fi sharc laakiin waa la barayaa xijaabka in la barta diintu ma diidin ayadoo aan looga dhigaynin shay waajib ah ilmuhu intuu yar yahay marka in la eego oo wixii guurka ku bixinahaya gabadhuna ay iska eegto wiilkuna uu eego hadhow saan uyna u imaanin waa ku kadsoomay waa mas'alo sharciya weeye mana ahan sida dadku dhahan gacmaha iyo wejiga laga eegayaa wixii guurka ku bixinaya oo aan ahayn qofka xubnaheeda la eegi mayo laakiin wixii guur ku bixinaya wax dhibaato ah male shareecadu male taas waxaa muhiim ah mas'aladii weliga oo aad loogu tasaahulo gabadha waxaa weeye lama guursan karo weli la'aan gabar weli la'aan lama guursan karo waxaa weeye gabadha waa in weligeedii la weydiistaa waa in laga yacni ma arkaysaa aan la dhaafin weliga telefoon baad diraysaa gabar baad la sheekaysanaysaa mays guursanna haa aabbaha ha u sheegin anna qofna u sheegi mayo masaladaa mas'alo bannaan ma ah mas'alo aan shareecada ku bannaanayn wey maxaa yeelay haddaad guur rabtid oo gabar islaameed doonaysid
وإن تقولي الباب كسو قشاه وإن dadkeeda weydiisataa sheekadu taasay ka dambaynaysa maaha sheekadu inay horeyso sheekadu waxay ka dambaynaysaa marka lagu siiyo oo lagu ogolaado markaas weeye sheekadu laakiin gabadhii oo reerkeedii ku siinin inaad mas'aladaas mas'alo bannaan ma aha mas'aladaas mas'alo bannaan ma aha mas'alo oo shariicadu ku banaynaysana maahan weligana lagama gudbi karo waxa weeye gabadhu aabaheed ama yani aqrab qofka hadba dakarka ah haddaan aabaheed la helin ama uu dhintay ama sabab ay jirto weligeeda lama dhaafi kara gabadha waa in weligeeda la weydiistaa iyadoo طبعا idankeedii loo baahan yahay albikru tusta'danu wathayibu tusta'maru xadiidkii nebigu wuxuu ahaa calayhi afdalu salaatu watasliim gabadha inanta ah waa in idan la weydiiyaa middan kale oo carmalkaana hadde amarkeeda ayadaaba haysata waa qof khibrad la weeye waxaa mawduuc muhiim ah mawduuca zawaajka marka laga hadlayo in kafaa'ada la eego kafaa'ada waa in la eegaa kafaa'adu waa muhiim weeye ayadoo oo mararka qaarkood islaamku uu yahay kafaa'ada runta ah ay tahay caqiidada iyo islaamnimada oo bukhaari uu baabaynayaaba baabka kafaa'ada wuxuu baabaynayaa xadiidkii gabadhii dubaacata binti zubayr ibni cabdilmuطalib oo qurashiyad ahayd oo nebiga adeerki dhalay oo uu qabay ninkii la dhihi jiray almiqdaad ibnu aswad ama miqdaad ibni camrin labadaba waa isku nineh oo uu qabay asna mawlo uu ahaa nin addoon oo la xoreeyey uu ahaa bukhaari wuu baabaynaya laakiin waxaa muhiim ah kafaa'ada in la eego si guurkaasu uu sii socdo gurigaasu u dhisnaado dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ma arkaysaa maalan hadday tahay kafaa'adu hadday tahay degaanka nin baa wuxuu leeyahay gabadhayda ku siin mayo maxaa yeelay meel kalaa degta adigu anna meeshaasaan degaa wax dhibaataa ma leh nin baa wuxuu leeyahay maalan aqoonta lafteeda baryahan waxaad u badatay habluhuna waxbay bartaan ragguna wax ma bartaan kolka maalin dhexaasa mid baa waxay tidhi kol sheekh cumar baa hadhowto arrimahaas isagaa iga maaragtay sheekh cumar faaruq baa iga cilmi roona isagaa arrimahaas idinka warrami doona mid baa waxay tidhi ninkii waxba ma yaqaan bay tidhi aniguna qur-aanka waan xifdisana kolka maxaan sameeyaa bay tidhi qur-aanka xataa salaadda waxa weeye naguma tujin karo kolkaasaan waxaan xasuustay ninkii la dhihi jiray mucaawiya ninkii la dhihi jiray safwaan ibn mucatal sulami ayaa naagtiisu ka soo dacwootay oo 3 shay bay ku soo dacwaysay waxay tidhi horta waa idilaabay tidhi markaan soonka uga jebiyaayo waa nin dhallinyaro ah oo shahwa wado kolkaasay soon sunna iska soomaysaa soon sunnaana gabadha looma ogola ama waajib muwasaca sida qadahoo kale haddii ninkii ma arkaysaa wax baahi jirto kolka waxay tidhi markaan salaada galana waa idilaa markaasuu nebigu weydiiyo wuxuu yidhi qur-aanka 2 suurad baan ka aqaan labada iidaa baan ku idhi xadiidku xasan wey labadiiba ii dayn weyday saasaan u dilaa buy tii saddexaadna waxay ahayd 3 sababood buu sheegay safwaan ninkii ahaa kolka waxay tidhi sheekhow ninkii qur-aan ma yaqaan anna waan xifdisanahaye saan yeelaa tuji baan ku yidhi jumhuurku waxay dhahaan ma tujin karo laakiin xadiidkii umu waraqa wuxuu tusinayaa haweentu inay tujin karta ragga kolka waxaan ku yidhi tuji marba hadduusan qur-aan aqoonin si ay ma arkaysaa ugu noqoto ciqaab iyo nakaal tuji oo salaadda asaga ka bixi salaadahoo dhan tuji halkaana waxaa ku dhumaya qiwaamadaadii baa ku dhumaysa marka mas'aladan ah kafaa'adu waa mas'alo daruuri ah wey mas'alo daruuri ah oo aad iyo aad u muhiima wey haddaan u soo noqdo mawduucayga mawduuca xuquuqda islaamku markii caqdiga uu dhaco oo guurka uu dhaco oo qofku uu yidhaahdo qabiltu gabadhuna ay aqbasho waxaa ka ratimaya xuquuq baa ka ratimaysa 3 baan u qaybinayaa qayb xuquuqda waxaa weeye qayb labadaba ay ka dhaxayso oo mushtarag ay ku yihiin qaybna waa qayb ninku uu ku leeyahay haweenayda qaybna gabadha ayaa iskale oo ninkeeda ku leh qaybta ka dhaxaysa oo 5 qodob ah qodobka koowaad waxaa weeye xillu lcishrati bayna azawjayn waxaa weeye cishradii isdhexgalkii dhexdooda ah inay bannaanaato oo ay xalaal noqoto qofba qofka kale inuu ku raaxaysto isagoo adeegsanaya wixii ilaahay xalaal u ka yeelay
ama waddo ha noqoto ama wasiilo ha noqoto waxa weeye taas waa shaygii la isugu yimid weeye waaladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum buu ilaah yidhi caza wajal fa innahum hayru maluumiin kolka waxaa weeye taas waa inay bannaan tahay oo labadooduba ay u bannaan tahay iyadoo wasaa'isha mashruuca ah ee bannaan ay adeegsanayaan midda labaad waxaa weeye waa xusnu lcishra bayna azawjayn waxaa waajib ku ah ninka zawjka inuu hagaajiyo mucaamalada xaaskiisa inuu hagaajiyo haweenaydana waxaa waajib ku ah inay hagaajiso mucaamalada zawjka inay hagaajiso maxaa yeelay xiriirkan ah in la isku nikaaxiyo ayaa wuxuu u yeerayaa in qofba qofka kale uu hagaajiyo kalgacayl iyo cadfi iyo taraaxum iyo taxaabub isjacayl iyo isu naxariisasho iyo isu dhimrin inay ka dhaxayso dhinac keliyana kama imaan karto waa in labada dhinacba ay ka timaadaa oo labada dhinacba waa inay ka timaadaa taasuna waa arrin aad iyo aad u muhiima weeye islaamkuna aad iyo aad buu u akiday nebigu calayhi afdalu salaatu watasliim waa miduu leeyahay laa yafruk mu'minun mu'minatan khuluqa in kariha minha khuluqan radiya minha aakhar haddaa qofka ku aragtid waxaad ku dhibsanaysid ama haweenayda ay ku aragto ninkeeda ama ninku haweenaydiisa uu ku arko waxaa shaki lahayn jawaanib fara badan oo wanaagsan oo labada qof oo ay macnaha raalli ku noqon karaan inay jirto taasaana loo baahan yahay in jawaanibtaas la eego waa arrin aad iyo aad u muhiima wey midda saddexaad waxaa weeye xurmatulmusaahara wey waxaa weeye dadkii xididnimaa imaanaysa waa in dadkii xididnimadii la ilaaliyo oo xiriirkii xididnimada la sameeyo oo hadda aad buu u soo dhammaanayaa waxaa weeye ninka maanta gabar guursadaa adeerkeed ma yaqaan oo abtigeed ma yaqaan wuxuu leeyahy labadeenna aan isku ekaanno ayaduna waxaaba laga yaabaa inayna aabbihii iyo hooyadii iyo ma arkaysaa inay tidhaahdo islaantan ku dhashay meel kala geeyo ha ii keeni dhibkeeda dooni maye kolka waxaa weeye musaaharadu waa yacni waa arrin aad iyo aad u muhiima in la ilaaliyo waxaa xaaraam ka ah ninka ta'biid waxaa xaaraam uga ah yacni markii caqdigu dhaco gabadha hooyadeed iyo ayaydeed labadaasuba waa ka xaaraam weeye marba haddii caqdigu dhaco gabadha hooyadeed iyo ayaydeed intay rabto kor ha u socoto ayayadaas xaaraan bay kaa tahay ma guursan kartid waxaa kaloo xaaraam kaa ah gabadhaad guursatay furuucdeeda gabadhay dhashay tay sii dhashay intay rabaan ha degeene laakiin waxaa shardi u ah middaan in dukhuul dhexdiinna uu maray laysu galmooday baa shardi ah waxaa ninka ka xaaraana usuusha gabadha ma arkaysaa gabadha waxaa ka xaaraana baan leeyahay usuusha ninka aabbihii awowgii kale sidoo kale waxaa xaaraamka ah wiilkiisa wiilkuu dhalo wiilkuu sii dhalo waxa saa u socdoo dhan gabadha waa ka xaaraam wey ayadana waxaa weeye mas'aladaasuna waa musaaharadii weeye xaqa afraad waxaa weeye hubuutu nasab waxaa weeye nasabka awlaadda waa in laysu sugo weeye ilmuhu magaca aabbahood bay qaadanayaan waa in loo sugo weeye waxaa kale oo loo baahan yahay magaca hooyadood in loo sugo oo hooyadood magacooda aan loo diidin waa dhici kartaa mararka qaarkood in ilmuhu ay qaataan magaca hooyadood waxaa mararka qaarkood dhacda islaanka magac dheer odaga kolka waxaa arkaysaa ina heblaayo xataa muxadisiinta waan ku aragnay ibnu culaya iyo cabdullaahi ibn maalik ibn buxaynata iyo way badan yihiin dad oo maaragtay hooyooyinkood loogu yeero ma arkaysaa muxuu ahaa moxamed ibnulxanafiya oo kale isagu ma ahayn inay hooyadii cali ka caansan tahay cali baa dhalay cali ibn abi aalib laakiin gabadha hooyadiisa waxay ahayd gabdhihii lagu soo dagaalkii yamaama lagu soo qabsadayoo min bani xaniifata marka moxamed ibnu xanafiya qofka arkaa ma moodo in cali dhalay nin kaley moodaan dadka aan aqoonta lahayn laakiin wahaakada laakiin asalku waxaa weeye taas waa masala iska farace asalku waxaa weeye in loo sugo gabadha inay dhashay ilmahaas aabbuhuna uu magacii qaato maxaa yeelay waxaa ka ratimaya ubuwadii iyo aabbanimadii iyo umuumadii iyo koritaankii xadaanada carruurta iyo nafaqadii iyo waxyaalo badan oo ka ratimaya ayaa jira haddaan laysu suginna dhibaato ayaa ka imaanaysa waxaa ka magacoo laysu sugo ka xasilmaya xaqa shanaad oo soo socda oo dhaxalka ah
waana xaqa shanaad weeye xaqa shanaad waa dhaxalka weeye gabadha iyo labada qof oo caqdigu isu keenay midka noolaada midka dhintay buu dhaxlaya waa xaq mushtaraga weeye labadooduba ay leeyihiin sida ilaahay uu leeyahay caza wajal walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad fain kaana lahunna waladun falakum arubucu mima tarakna buu ilahay yidhi caza wajal ninku xoolaha bar buu qaadanayaa haddaan carruuru jirinin haddii carruuru jirto marka xoolihii rubuc buu qaadanayaa gabadhiina waxay qaadanaysaa rubuc haddaan carruuru jirinin hadday carruuru jirtona umun bay qaadanaysaa ama mid ha ahaato ama laba ha ahaadeen ama saddex way qaybsanayaan umunka ama rubucaas xuquuqda marka mushtaragga ah shantaasaan ka soo qaadaya waxaan u soo gudbayaa xuquuqda ninku ku leeyahay haweenaydiisa waxay awalan waa xaqu taaca fii hayri macsiyati illaah haweenaydu waa inay ninkeeda ku ateecdaa wixii aan macsi ilaahay ahayn waa inay ku ateecdaa waa shardiga koobaad macsi ilaahay ma ahan shardiga labaadna waxaa weeye waa wax guurka raad ku leh inuu yahay waxay ku ateecayso wixii guurka aan raad ku lahayn ee arrimo u khaasa ayada iyo reerkeeda ama ayada iyo walaalaheed ama ayada iyo aabbaheed kolka zawjku xaq uma leh waxaa weeye waa inay tahay waxaasu taacada ilaahay waana inay tahay wax guurka raad ku leh xukum axkaamtiisa ka mida ah maxaa yeelay ninku asagaa reerka mas-uulka ah inuu edbiyo guriga iyo in ma arkaysaa uu dawaabid u dejiyo asaga ayaa iskale alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq inama taacatu fi lmacruuf sidaasuu yidhi nebigu calayhi afdal salaatu watasliim marka waxaa laga doonayaa haweenaydu inay ateecdo ninka inay ateecdo oo ma arkaysaa ay aad u ateecdo saas ayaa la doonayaa taaco walihaada nebigu wuxuu ka cabiray fa inahunna cawaanun cindakum buu yidhi sidii wax la soo afduubay oo kale ayaa laga cabiray taacada ay bixinaysa intay la-eg tahay saas ayaa yacni loola jeedaa waa inay ateecdaa haweenaydii eeddada u ahayd alxusayn ibn muxsin ayaa nebigu waxay ku tihi maxaan ku galaa janno kolkaasuu wuxuu ku yidhi zawju ma leedahay haabay tihi see ku tahay buu yidhi waatay tihi waxba kama hagrado eeg buu yidhi jannadaada iyo naartaadu waa asaga kolka taacadaas waa loo baahan yahay waa shayga wax ku kala socon karaan haddayna taaca jirinna wax soconahaya ma jiraan iyadoo dawaabid le taacadaasu midda labaad waxaa weeye gabadhu waa inay ku nagaataa alqaraaru fii beyti zawjiya waa inay ku nagaataa gurigii lagu guursaday weeye waana ma arkaysaa xuquuqda zawjku uu leeyahay weeye waa inay guriga gudihiisa ay ka shaqaysaa waa inay joogtaa guriga wixii hadday baxaysana idan bay qaadanaysaa hadday baxayso idan bay qaadanaysaa oo idan bay ku baxaysaa laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah walyakhrujna wahunna tafilaat sidaasuu leeyahay nebigu calayhi afdal salaatu watasliim wuxuu leeyahay ha u diidinina hablaha ilaahay masaajidada ilaahay inay u baxaan yacni hana baxeen buu yidhi ayagoo tafilaat ah tafilaadka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa taarikaatun litiibi waziina ayagoo ka tegahaya uduga is-udginahayaan iyo quruxda dharka quruxda badan ayagoo ka tegaya gabadhu inay markay baxayso idan qaadato weeye mawduuca gabadha iyo xijaabkeeda iyo waxay ku baxayso wuu ii imaan doonaa in sha allahu tacaala midda saddexaad waxaa weeye oo xaqad ninku ku leeyahay gabadha ah waa inay arrimaha guriga u istaagtaa gabadhu hadday tahay cunto kariskii hadday tahay ma arkaysaa muxuu ahaa takniiskii guriga dhardhaqiddii hadda waxaa leeyahay raggi maxay u jihaadi waayeen nin gabaru cabsiisay miyaa jihaadi kara kulli waa cabsanaya guriga huufarka asagaa mariya ma arkaysaa muxuu ahaa waxaaba cabsidii wadaadkii sheekh yuusuf maanta sheegayey oo intaan cadowgiiba la gaarin gabdhihii baa ragga cabsi unku abuuray wax kaleba ma hayaan inay ragga cabsiyaan maahan gabdhuhu iyo isdhihi ninkanu gabdhaha keliyu ku taagan yahay ragga waan u imaan doonaa insha allahu tacaala hadduu dacwo ku soo daa waxay leedahay xaggee ka timi yaa u dirsaday meeshuu ka yimi waxaaba laga yaabaa marka dambe inuu been sheego oo yidhaahdo isagoo meel uun iska jiray qaraabadiisii soo salaamayey inuu yidhaahdo darsi baan soo dhegaysanay cabsi uu ka cabsanaya iyada yaa u baahan waxaas miyaa loo baahanya marka
guriga hawshiisa iyo ricaayadiisa cuntada kariskeeda iyo nadiifinteeda uma habboona ragga laakiin gabadha waa loo samaynayaa hadday dhibaataysan tahay waa loo samaynayaa waxaasoo dhan laakiin asalku waxa weeye gabadhu inay leedahay curfiguna saasuu ahaa caqliga iyo sharciguna saasay ahaayeen waxaana soo aroortay maalan saxaabadii nebiga haweenkii nebigu inay u adeegi jireen nebiga calayhi afdalu salaatu watasliim waxaa sugnaatay haweenka saxaabada inay u adeegi jireen asmaa binta abi bakrin radi allahu tacaala canha waxay leedahay zubayr ibnu alcawaan baa qabay waa u shaqayn jiray bay leedahay faraskiisana calafka anaa u dhigi jiray cuntada anaa u karin jiray sidoo kale nebiga faatima gabadhiisii calayhi afdalu salaatu watasliim kolkay ka sheegatay shaqadii badnayd ee cali gurigiisa ka haysay ooy khaadimad weydiisatay nebigu waa u diiday calayhi afdalu salaatu watasliim curfigaana keenaya in ma arkaysaa gabadhu shaqadaa qabato haddii curfiga wuxuu ka baxaan sida waddamadan aad joogtaan oo ninka uu la masruufo sida gabadha loo masruufo taas waxa weeye waa mas'alo yani idiraari ah ama ka baxday curfigii laakiin anu mas'aladan ka hadlaya waa mas'alo ta'siil oo asal ah weeye laakiin wixii ka baxay oo noocaas oo kale ah waa mas'alo gooniya weeye oo laga hadli doono su'aalahayna ku imaan doonta iyo wixii la mid ah marka taasna waxa weeye waxay aad u saacidaysaa in ninku uu u istaago umuuro waaweyn oo islaamka oo looga baahan yahay in wahniga uu ka kaco in dacwada uu u qumo inuu jihaadka u qumo inuu mujtamaci cudwi facaala ka noqdo inuu carruurtiisii uu u noqdo aabbo wanaagsan waxaasoo dhan waxay ku imaanayaan in ninkii uu noqdo nin shaqadii guriga aan haynin ma arkaysaa muxuu ahaa yacni gabadhu ay shaqada guriga u qumto haddaan dhibaata jirin hadday dhibaata jirto waa noo imaan doontaa haddaan intaa uga soo baxo xuquuqda ninka waxaan soo gelayaa gabadha xuquuqda ay ninkeeda ku leedahay waxaa aad iyo aad diinta islaamku ay u danaysaa oo ay ragga aad u amartaa wanaagga iyo diinta wanaagsan iyo qofka wanaaggiisu waa intuu ehelkiisa u wanaagsan yahay wey khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi buu yidhi nabigu calayhi afdalu salaatu watasliim kiina idinku wanaagsan waa kan ehelkiisa ugu wanaagsan buu yidhi kan xaaskiisa iyo carruurtiisa ugu wanaagsan weeye anaana ugu wanaagsan buu yidhi nabigu calayhi afdalu salaatu watasliim u fiirsada xadiidka nabigu saasuu leeyahay calayhi afdalu salaatu watasliim istawsuu biاnnisaa'i khayran fainahunna cawaanun cindakum axaadiistu way badanta awalan xaqa ugu horeeya xaasku kugu leedahay waxaa weeye inaad u cadaalad samaysid wey alcadlu wey cadaaladdaas maadaama adigu aad tahay saaxibulkelima guriga kelimadiisii ilaahay ku siiyey waxaa loo baahan yahay inaadan ku gaboodfalin oodan ku tagrifalinin oo aad gabadhaa kuu joogta hadday mid tahay baan ka hadlayaa hadday ka badan yihiinna waa noo imaan doonaan qofkii uu cadaalad u sameeyo inuu cadaalad u sameeyo marka uu ka rabo inay ateecdo marka uu rabo inuu edbiyo marka uu rabo inuu wax amro marka uu rabo inuu wax ka reebo waxaa looga baahan yahay inuu cadaalad sameeyo cadaalad baa looga baahan yahay maalan waxaan soo qabanayaa xadiidkii hadda aan sharxayey oo ku saabsanaa xadiidkan axmed iyo abu daa'uud baa wariyey waana xadiid xasana laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah walyakhrujna tafilaat buu yidhi nabigu calayhi afdal salaatu watasliim marka gabadhii maalan hadday ninkii weydiisato inay baxdo cadaaladdu waxay ku jirtaa inuu awalan yidhaahdo xaggaad u baxaysaa hadday gabadhu jumcada tegayso in loo diida ma fiicna hadday tegayso mawcidada inay soo dhegaysato oo wacdiga ay soo dhegaysato nebigu waa saari jiray ciidaha waad ogtihiin hablaha wuu saari jiray xataa hablaha yaryarkaa wuu saari jiray hablaha yaryarkaa inay soo dhegayso dabcan ka hadli mayo salaad gabar masaajid u aaddo salaadaha masaajidka lagu tukanayo waxaa uga fadli badan salaadda guriga uga fadli badan gabadha xaramka inay ku tukato waxaa uga fadli badan oo 100 kun oo salaadood ah inay gurigeeda ku tukato laakiin waxaan ka hadlayaa waxaa weeye marka ay rabto inay baxdo inaan loo diidin aabbaheed bay rabtaa inay ziyaarato yacni cadligu wakaa weeye cadliga loo baahan yahay waa cadli ku saabsan in qofku uu eego dabcan waxaa weeye horta inuu yidhaahdo xaggaad u baxaysaa maxay ku baxaysaa waa mawduuc muhiima wey gabadha muslimadda waa inay ilaalisaa markay baxayso aadaabta islaamka waa inay ilaalisaa waa inay ku baxdaa idan waa inay ku baxdaa
وين إذن كبحدا قبل ربطين يجوكتوي ما هم مدة ربطين ورقد هذه لسي وحربت سمان وبحيا هدي ترى هذا مدة أصول الله بلود بجوجس مد وقت يرلو تلقليو مدة نك معناها فاكتمركو عريسية هي تحريش بيكو سميسة الباب كان فرفور ما يلا هذا فر درجة فرفور ما ي لكن وحوي مدة وانا أحسن ربطين يجوكتو ما مدة صبر كله صدقي كله قفكم مركو عريسية يودوا القاضي يسوه هدي اللي يراها بحنا عن بحينه وين إلى لسا إذن كوين إلى لسا وين آدابتي بحدة إلى لسا والنبي يقول يري وليخرجن وهن تفلات تاركات للطيب والزينة هوي قبل مركي بحيسه وين حجابك وين قبته حجابك وينو يهي حجاب شروط دي سي أفصدي شروط دي سوا محي وينو جركودن أسطورية جركودن وينو أسطورية حجاب جركودن أسطورية وينو يهي فضفاض وينو يهي واسع وينو يهي وينو قبر يلبا بكله من كرتا قبر باقليس ومن لباد باقليس ومن سدحات باقليس ما هن مرة كل جنيني تاي أما ما أركيس على بكرة جوانو شهر ينتصوق هذا تمرة كلا إني ترى حجاب بانقوا ما حجاب حس مرة فضفاض أو إنيت وجركورنا أسطوريس وإني مرة غروين تاي أو عن عورة هذه لقى أركيني وإني ناهين مرة روح بدن أو غفك سوجي ذا نيس ولا تبرجنا تبرج الجاهلية دروا قبته وانا قاوة وحاوي دروا قبته تبرج وحاوي در قبته لكن أين درك أسطر صنهين وإنه يهي مثلا وصنهين ثوب زينة وصنهين مرة ساسوي مرة ذا الربا وإنه صنهين مرة أذق لقب ذي نبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حديث كي ورنا يبيهقي وأبو موسى الأشعري ابن حبان ورنا وحول لي أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت بقوم أو بمجلس ليجدوا من ريحها فهي كذا وكذا وليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل قرق هذه كصوب بحضي أو يسسود قسي أو صوب بحضي رق صومرتي مجلس صومرتي إني أذق هذا هلان نبي يقول حيروا أساس رواية كغاركود رواية ابن حبان فهي زانية بوليه النبي عليه الصلاة والسلام وزانية بوليه وإشي عرقتها أو كستنا وكل زني سنيسة وكل عين تراها وحوي وزاني وحلم إذا بخور كلم إذا وقتها يعني ضد واحد مودان مركل اللي هي أذق برفون كان بمودان حاجر بحال كان صومالي تسكوش الدو وكدر إيه برفون كأسا كدر بحال كان دمر كسكوش دان هذا أنت تسكوش الدو صوب بحضه وبس صور رعد ومد يورن أيده يجيان ومد محيو يجيان محيو الأمد أيده جيدنيس أذق هذا اللي يجيا إلا أيده يابو جيده ما بنانا أرنتها سكال قبل وإني مركا آدابت إلى لسان بحتان نبي حديث صحيح بيهقي باوري وحكول ليس للنساء وسط الطريق وضد برتمه الضمر كمله بوليه النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما هو وضد برتمه هذا إن يالته وإن يرقي كدح بحضه ويكفوقاته وحايل وحاول عرضة للفساد وإيه صلاة وقفل لبضن أو صف ضمر وصفك قدام بيوي حديث أبي هريرة في الصحيح وي صفك الضمر كوجو خير بدن وصفك وقدام بيه صفك وجو شر بدن وصفك رجع حجوي رجع صفك وجو شر بدن ورجع صفك الضمر كحجوي ساسا النبي يقول إلى الله عليه أفضل الصلاة والتسليم مركع عدالة دي بالوجبة هي نينكو إنه عدالة سمايه عدالة ده سوين لقيها لا أديكم حاج عشاء إنك كهش الحاس كاج وحاج عشاء يوحوا أكثر إنك كهش أديك وين وأنتي وكلا كاهش أيضا محايا الإله يوحوا ليه هي وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بإله الله عز وجل ابن عباس باوحوا يري وحان جعلها إن أنا السقوق قرحية إني أحب بير أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي بير وحان جعلها بير هو أنت إذا إن أنا السقوق قرحية سيدا أن جعلها بير إن يسقوك يقرحس ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه مدانا عظيم وما حيب الله أسقنا وليك مع عظيمي أيضا بوجه ذاك لي مركب وحول ابن عباس سيدا أن أجعلها إن أيضا وحان ربنا أن كهله أيان أيضنا أنيقو أن سيرة يا أبو الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وصحابة ديوي مركب وحال الدنيا إن عدالة لقى سميه
arrintaa waa in cadaalad laga sameeyaa cadaaladuna waxaa weeye sidaad adigu u dhaqmaysid oo aad jeceshahay in lagula dhaqmo inaad ula dhaqantid reerkaaga hadday laba yihiin xaasasku wayba ka sii badanaysaa oo waxaa weeye cadaaladdii aad bay u sii adkaanaysaa arrimaha muuqda iyo waxaan muuqanba waa in loogu cadaalad sameeya waa in mabiidkii meeshii la baryahayey hadday tahay dharkii hadday tahay nafaqadii hadday tahay ma garanaysaa faraxii hadday tahay ma garanaysaa degitaankii gurigii la dejinayey laba dumar haddii la qabo in loo cadaalad sameeya waxaa weeye qofku hadduusan cadaalad samaynin adduunyadan aad u jeedaan cadaalad bay ku dhisantay waxaad leedihiin gaaladu maxay u taagan tahay muslimkuna maxay u burburayaan muslimka waxa burburinaya ma ahan tawxiid la'aan ma aha caqiida la'aan ma aha iyagii gaalada yacni gaalku waaba mushrik muslimkuna iimaan buu leeyahay ilaahay buu u tukadaa waana burburayaa waagii baryaba muxuu burburayaa dulmiga wey ibn taymiya wuxuu leeyahay ilaahay dowlad islaama waa burburiyaa buu yidhi in kaanat haalima hadday haalimo tahay dowlad gaalana waa taagaa buu yidhi hadday caadilo tahay riwaayad kale wuxuu ku leeyahay addunyaa taduumu maca alkufri waalcadli walaa taduumu maca aldulmi waalislaam buu leeyahy wuxuu yidhi adduunyadu waxay ku daa'imtaa buu yidhi adduunyadu waxay ku daa'imtaa gaalnimo iyo cadaalad wada socda waa ku socon kartaa buu yidhi islaamnimo iyo dulmi wada socdana kuma socon karta buu yidhi marka dulmigu waa baabi'inaya gurigii buu baabi'inaya carruurtii buu baabi'inaya labada qof waa in loo cadaalad sameeya haddii qofku uu rabo inuu safro laba xaas uu leeyahay mid keliya unbuu la safrin lama rabo hadduu xanuunsado mid gurigeed inuu ku xanuunsado lama rabo waa inuu idan qaataa guriga uu ku xanuunsanayo waa in lafteeda idan u weydiistaa cadaalad bay ka mid tahay yacni waxaa weeye haddii taas la waayo fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxidah buu ilaah yidhi dabcan dumarku way dhibsadaan laakiin asalku waxaa weeye fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i ku dhawaaqade maxaa aamusantihiin mathnaa wa hulaatha wa rubaac asalku wataa wey asalku waxaa weeye 2 iyo 3 iyo 4 wey haddii laakiin waa goorma afar xinina u kaadiye waa goorma waxaa weeye goortii qofku uu ka bixi karo wey cadaaladdeeda wey cadaaladdii nafaqada cadaaladii cishrada cadaaladii ma arkaysaa markaasuu ilaahay wuxuu yidhi haddaydan awoodin fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida buu ilahay cadaaladduna wax sahlan ma ah cadaaladdu wax weyn weeye qofku hadduusan cadaalad u samaynin dadka uu la joogo waxa way dhibaato weyn baa u imaanaysa adduun iyo aakhiraba dhibaato weyn baa u imaanaysa adduun iyo aakhiraba dhibaato weyn baa u imaanaysa ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay kaana khayru hadihi اlumma akharuhum nisaa'an wa khayrukum akharukum nisaa'an buu leeyahy ummaddan waxaa ugu khayr badnaa buu leeyahy nebi moxamed calayhi afdal salaatu watasliim isagaana ugu dumar badnaa buu yidhi idinkana waxa idinku khayr badan buu yidhi kiina idinku dumar badan buu yidhi laakiin waa goorma waa goortii cadaaladdii ay joogto wey midna waxay hawdkii bay joogtaa midna iyo tamboori baan ku haynaya ma cadaalad baa ma soconaysa tan hawdka joogta ari bay daba socotaa gaajaa dishay middaanna waxaa weeye wax allaala iyadaa la siinayaa labadii sanana taasaa mar la soo salaamayaa wax jira ma aha wax jira ma aha cadaalad ma aha waxaa weye marka cadaalad baa loo baahan yahay in loo cadaalad sameeyaa loo baahan yahay wixii qalbiga ah nebiga ka hadlay oo ka hadli mayno laakiin waxaa loo baahan yahay in loo cadaalad sameeyo in loo cadaalad sameeyo ayaa loo baahan yahay midda labaad waxaa weeye xuquuqda zawjadu ay leedahay waa annafaqa nafaqadu waxaa weeye cuntadii in meelay degto la siiyo in mara ay xirato la siiyo waajib bayna ninka ku tahay wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf axaadiistuna aad bay u badan yihiin axaadiidta ku soo arooray mowduucaas maalan xadiidkii jaabir baa ka mid ah nebigu wuxuu yidhi maalintuu la hadlay saxaabada ayuu wuxuu yidhi ittaquu llaha fi الnisaa'i fainahunna cawaanun cindakum akhadtumuuhunna biamaanati اllaah waاstaxlaltum furuujahunna bikalimati اllaah walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna
حديث كان مسلم يا أبو داود باوريي وأنا حديث صحيح ويساد جيدان